السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوتيوب كداوانا سوا سعيد سربيا. Welcome back to another video. سأوجي دامبو سعيد سربيا وحكو سوغين هاي ولي جرمالكا وقدامبين وحال جوغاد دقيقة وقدامبيسي او odayga جرمالكا تاقي lahay haddii taa markuu ugu horo janalkii ku soo gaaro waxa si xushmad la kaaga codsanaa nacala shidaan ku yaale janalka waa janalkaaga subscribe sar like share comment la wadaag ma fahanti intaas haddii aad ka soo gudbo saacado yar kadib insha Allah gaariga ku dhici doona safar ahay intee safar u ahaa waa marka su'aasha meesha taala waxay tahay Saciid Serbiya intuu safar u yahay safar ahay ma wuxuu u socdaa Malaysia ma wuxuu u socdaa Africa ma wuxuu u socdaa Europe meel kamid ah intaba insha Allah waxa ku ogaan doontiin dhamaadka videogan haddii leedma ama waxa ka sameyn doona video labaad kaga hor dhacaayo laakiin waxa la joogaa saacadii u dambeey ah bixi lahay wax aan dhameyn hal saac insha Allah ama hal saac bar kadib gaariga gali doona waxa waa hawayga qabana ma fahanti okay intaas hadii laga soo gudbo saacadteen ba Saciid Serbiya Jarmal ku sugnaa maalmihii dambe oo la soo dhaafay maxuu Jarmal ka qabtay maxuu soo kordhiyay maxuu la kulmay intuu Jarmal joogay adiga hadii daawanayo Jarmal jaanisi badan ka furanaysa aniga aan soo arkay meeshaan waxay u baahan tahay dad maskax leh Soomaalida wadanka ku nool dad fikiraayo boqolkiiba ma aha waa arka aniga business badan wadanka laga sameyn karaa business aad iyo aad u badan wallahi billahi talaahi laga sameyn karaa ma fahanti waa idin dhaarnaa baan mid kugu dhaarnaa sababtoo ah waxyaabaha wadanka ku arkay waa wax aanan maskaxda geleynin brother ma fahanti waa wax aanan maskaxda geleynin waaye marka qofkii doonaayo ama qofkii xiiseenaayo in uu yimaado Jarmalka oo ka bilaabo business oo kaleeto aad iyo aad ay ugu fiican tahay jaanisi badanana ka furan jaanisidaasna waxa ay yihiin adika arki doontiin insha Allah hadii eeba idmo idila soo wadaagaya ma garateen intaas hadii ay ka soo gudbo waqti qurux badan Jarmal ku qaatay inkastoo aad degnaa meel yar oo tuulo oo dho Stuttgart la ilaaha illa Allah waa tuulo caadi waa tuulo saas u taala Stuttgart dhan la sheegayo waa ka ma fahanti waa tuulo caadi waaya tuuladan inkastoo aanan maanta aan macnaha kuma caasiyan kara laakiin waa iska tuulo waay ma fahanti qofka Jarmalka yaqaan oo yaqaan meeshan waa meel tuulo sidoo kale waxa jirtay video oo aan ka hadlayay nolosha Jarmalka waxa jir waxyaabo aan ka iloobay oo aan rabo in hadda idin sheego dadka wadanka degan boqolkiiba 80 Jarmalka waxay u badan yihiin Soomaalida ku nool guryaha ay degan yihiin oo kaleeto waxa jeclaan lahay inaan waqti badan ay sii joogo laakiin way socon weysay laakiin waxa isku dayaa inaan video idin la wadaago ku saabsan dhanka guryaha meeshan waxa waay guryaheeda Soomaalida ku nool waa arkay dad badan guryahooda tagay waxa waay brother qol yariis waa ma fahanteen hal sariir ku taalo qolkaas yarka ku dhex jiray ma fahanteen waa qol oo 2 mitir ah waaye lacagtiisana waxay u dhaxaysaa ilaa 200 euro ugu yar waxa ugu badan 500 euro waa hal qol hal sariir ku taalo bis sariir kaliya ku taalo wax kale ma yaalaya ma fahanteen marka waa ilaa iyo 200 500 ugu badan ma fahanteen ninka xaaslaha ahna dukula ninkaas waaweynka waa xaasoo leeyahay wuxuu sameyn karaa gaariga kale naagtaas wata wuxuu sameyn karaa inuu ijaarto 2 qol oo kaleeto labada qolna dukula 1500 ilaa 1300 ayay u dhaxaysaa ma fahanteen marka videogan waxa waaye video ah nolosha Jarmalka inta aan bixin ina wax idin kaga taabto qofka shaqeynaya bishii oo wadanka muxuu ku shaqeynaa 3,000 euro iska dhextaa si qofka 3,000 euro ha ku shaqeeyo qofka family wadankan jooga oo 3,000 euro qaadanayo kale waxa waaye 1500 markuu xaasi carur leeyahay 1500 laga yaabaa in guriga ay uga baxdo ama 1300 euro 1300 euro hadii guriga uga baxdo maxaa u soo haray marka waxa u soo haray Sweden bil Soomaaliya laga rabo oo diray marka Jarmalka waa kaasa qofka single ka ahna 2500 ama 3000 ku shaqeeyo laakiin lacagta ugu badan oo la qaato waa 3000 Soomaalida boqolkiiba 3000 ma wada qaadato ka yar qaadata 2200 2000 2500 2700 euro waa lacag lagu shaqeeyo wadankan waa soo arkay marka macnaha waxa raba dadka ku jirto inay yimaadaan Jarmalka ama iska dhacsinaayo Jarmalka lacag badan ta Jarmalka shaqo way taala laakiin saa u maleynaysa ma aha Soomaalida ma aqaan waxba ka qaldan waxay ku xisaabtamayaan isla markiiba qandi inay helaan rig hal boorso lacag meesha wax kama jiraan brother ma fahanteen qofka 2,000 euro ku shaqeeyna ama 2,500 euro bishi qaadana guri ijaar oo daga oo 500 euro ee bil Soomaaliya dira oo qaxan kadib xaqiiqadan qofka Soomaaliya la arkaa
su-aashan waxay tahay marka dadka isma weydiiyaan jarmalka faransiiska austria kasoo sheekay dad ay dhahay austria dadka dhahay kasoo sheekay austria waxaa lagu shaqeeyaa 1700 ilaa 1800 oo euro aa lagu shaqeeyaa ma fahantay hadda been sheega dadka austria jooga ay daawanayaan way yaqaanaan 1700 1800 2500 ha ugu badnaata xitaa ما فهمت لكن سيدا نورمال كعادي سالري عادي كون 600 كون 700 كون الى كون 900 لعقت لقاته marka wadankeena hooyo waxa noo dhaamo malahan yaa la soo fududaanin ma fahanteen wadanka hooyo waxa noo dhaamo malahan waxaan jeclahay inaan Austria maro markii aan soo baxay inaan soo maro aan video kaga soo duubaa jeclahay way ii suurtagal weysay insha Allah laakiin maanan give up maana sameenin video Austria arki doontiin insha Allah دقيقة صدق وأركيسين فيديو أستراليا وأدي ديارنا إن شاء الله ما قلت مركا وحواي أو كلي هذا نلاشة أستراليا واتاسا وأدي شيء فرانسيسكا ده إلهي كسر هذا فرانسيسكا سيدك لا وحواي وحلقوش قيمها جرمال كسكميدي هي نوفانتي كبر لقومش قيا سويسرلاند ده إلهي سويسرلاند أيضا كسر هذا سويسرلاند ساوكتين وودن قنيه وودن دخالة بدن هايستو وودن العق بدن له لكن lacagtaas fiirinin faraha badan leh waxay ku baxaysaa wadankii ma fahantay wadankii dib ugu noqonaysaa Jarmalka Switzerland qofka markuu 5,000 euro ku shaqeynayo kale brother 2,000 amal taxes canshuura ka go'ays guriga ijaarta qarrac maal cilla taaganta marka euro wadana waxay iska taaba xaalkeeda ilaahay og yahay mid labaad waxa waaye dadka Soomaalida qaasatan Soomaalida waxyaabo badan ka maqan aysan fahansanayna jiro waxyaabaha kamid waxyaabaha ay safansaneen waxa kamid ah war dadka bini aadanka way shaqeystaan lacag badan ay sameeyaan hadda aniga ay daawanayo Jarmalka waxa rajeynaa insha Allah business inaan ka furi doono mana idin kaga hor dhacaayo insha Allah waxa rajeynaa inaa adika arki doontiin maalinta marketing u sameeyana ama xayisiis u sameeyana businesskayga insha Allah hadaan noolahay waa arkaysiin sababtoo ah waxyaabaha aan arkay waa wax wallahi niyadeeda ka bixila مقرتي dadka Jarmalka jooga qaasatan Soomaalida ma fahansano waxa waaye xamaali oo kaliya ee Soomaalida fahansantaa laakiin waxa jiro waxyaabo oo si fudud lagu heli karo lacagtoodana ay yar tahay lacagtooda ay sabadneena jiro laakiin Soomaalida aysan fahansaneen waxyaabahaasna mid kaga hor dhacay insha Allah sababtoo ah hami marka leedahay ama marka rabtid inaad wax qabsatid waxa fiican waxa inay top secret ku yihiin in hor dhac sameeyso ma wanaagsano insha Allah hor dhac ma sameeynayo rajada Allahna kama quuso doono insha Allah waxa waaye ilaahay idinkiis waxaan rajeynayaa hamiga aan ka leeyahay Jarmalka ama businesska aan doonayo inaan ka furo in ay suurtagal doonto doo alleedmo adinkana ducada waxa xageena igu soo koob ma fahanteen sababtoo ah Soomaalida wadanka ku nool waxay aaminsan kaliya inay xamaal noqdaan ama ay shaqeeyaan bishi ku shaqeeyaan 2,000 ilaa 3,000 ilaa 3,500 euro ma fahansana waxyaaba waxa jira business ka aad u fudud lacagahaas ay ku xisaabtamayaan 3,000 ka badan bishi lagu shaqeyn karo laakiin ma fahansana Soomaalida marka waxyaaba badan aan arkay waxa arkeen waa wax niyadeeda ka bixila insha Allah waxa rajeenayaa inuu Ilaahay ii fududeyn doono ducadan waxa xageena igu soo kaba waana guulaysan doonaa insha Allah waxa idinkaga tagayaa salaamka mid ugu qaalasan salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh janaalka waa janaalkaaga marti kama tihid soo dhawow subscribe like share comment inta wana la wadaag boqolka wadada aan ku gaar lahaa saaranahay maantana safar ah insha Allah haddii oo eeba idmo meesha safar ku ah intaba waa ogaan dintiin saacad wax aanan dhameyn ama saacadii barkid insha Allah Jarmalka waa ka sii deyn doona haddii oo eeba oo idmo waxa idin leeyahay assalamu calaykum one love guys bye bye